wixii dhacay way dhaceen laakiin waxa hadda soo socda aniga wixii u dhici lahaa ilaaha iyo qorada ugu dhicin waa ku qanacsanahay kamana xumi laakiin dhibaatada ugu weyn maanta haysata waxay tahay yani aniga meeshan familkeyga ma joogan ninkaas maanta waa la qarinayaa Malaysia jooga because of qof booliiska lagu dacweeyay inuu elboorka bixi karo maleynay sidaas darteed Malaysia jooga aniga waa daneysanayaa bini aadan ahay maanta hoos u deegan kari haday noqoto inaa baxo waxa ku qasbanaa inay dadka ila jooga inay caawiyaan banaanka ii raacaan sida cunuga Roomaaya camal haddii maanta ninkaasi magaalada wili joogo nafteeda safe ma aha qofkii shalay waxaan dhibaato ii geystay waxa laga yaabaa bari inuu nafteeda siiyo haddii aan maanta dhinto anaa nool anaa hadlaayo dhibkeyga idin sheegaya laakiin bari haddaan dhinto ayaan Allah u naxariisto waliyaasa cid oo cadaalad ii raadinaysa ma jirto sababtoo ah Malaysia familkeyga ma joogo adiga haddii daawanaya dhooti haddii aan dhinto marka aragto videogeyga dhihi doonto ayaan inta soo waa ka xumaa wallahi wixii qof la dulmiyay maanta garab u baahanahay maanta wax ay qaban kartaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام لمانتين ملبا دنيا كجوكتان وسوبر ومن يوتيوب جنال كداون إنسان ويعني توفيشيال وحان لا يسود هذا مرة هذه مرتاحات وما سنتين هذا وما سنتين بقول كيبو وحما سنتين لو كن ما شاء الله نسود هذا جايز وإن سلام يا markii xigto waa idin mahad celinayaa sababtoo ah waxaa tihiin dadka maanta farxadeeda sida inaan u faraxsanaado sida mar walba idin soo fadhiisto hadii idinka ka taliye waana mahadsantiin boqolkiiba boqol commentidiina aad ku quruxda badan waxaa jira dad fara badan oo ila soo xiriiray oo maanta jecel inay caawiyaan aad iyo aad u mahadsantiin dhamaantiina sidoo kale dadka qaar yani wallahi way calool jilicsan yihiin wayla oynayaan dhibaatada kugu dhacday waa ka xunnahay alxamdulillah mar hadii wixii nala rabay ilaahay naga badbaadiyay ilaah baa mahad iska leh mid kale waxaan rabaa horta inaa idin soo bandhigay sawiradiisa qaarkiin laga yaabay inaad horay u aragteen aniga sababo jiro aan ku soo bandhigi waayay laakiin hadda waa idin soo bandhigayaa iyo waliba wuxuu asiga yahay insha Allah marka hore horta Soomaalideena badanaa ma ka hadlaya inta wanaagsan laakiin waxaan ka hadlayaa inta xun badanaa gabar marka la dhibaateeyo gabar iyo wiil adduunka number 1 waxa ka ah gabar waxa jira wax la dhahayo lady is first ama first lady waxa la dhahayaa jiro oo dumarka adduunka dumarka u horeeyo dumarka number 1 sida ognahayna waxa waaye adduunkan aan arkeyno dad dumar ku tiirsan yahay wadan walba oo dhisan eeg dumarkooda baa yani dumar fiican ah oo la ixtiraama dumarka la ixtiraama oo xuquuqdooda cid ku xad gudbi karta abeeraatid ma jirto xataa ma jiro yani qof rag ah oo habeesan kara ama xataa fiirin kara way dhacaan dhacdooyin fara badan yani adduunka way ka dhacaan ma ka dhacaan meedin dhahayo oo bataatanba ma dhacaan meedin dhahayo laakiin annaga sidee noogu dhacaan wax ugu dhacaan bulshooyinka kale adduunka sababta inoo keenaysana waxay tahay qabiilka marka hore waxaan islahaa dadka waa waxay barteen cilmiga leeyihiin qabiil iyo waxaas iyo yani in dadka la dulmiyo iyo qofka dadka dulmiye in la qarsado waxaas dhaay waa wax laga gudbay Soomaaliya yani marba markii ka dambeeyay waxaas dhaay dhalinyaro soo baxayso jiilba jiil ka dambeeyay wuu ka heer magaalsan yahay sida hore lama ahan laakiin nasiib xumo ilaa iyo wali waxaad moodaa in meedin dhahayo 1991 meesha taagneeda Soomaaliya yani dumarkii hadda ka taagan yihiin meedin dhahayo laakiin yani mar walba waxaan aragnaa gabar la dhibaateenayo haday wadankii joogto haday qurbaha joogto gabdhaheena Soomaaliyeed boqolkiiba 90 ma helaan wax cadaalad ah gabadhii ayadoo la dhibaateeyay oo sharafkeeda lagu ciyaaray la dilay la jir dilay wax walba loo geystay mar walba wiilka ayaa gar leh wiilka ay waxay siiyaan garta taasina waxaan leeyahay waxaas dhigi karaa waxa keenayso yani aqoon yarada iyo dadkaas cilmiyada ku jirto marka intaas laga soo gudbo mar walba waxaan rabaa yani dumarkeena in aan garab isiino oo garab la siiyo ma sha Allah way jiraan wiilal wanaagsan oo boqolkiiba 95 wiilasheena waa wiilal wanaagsan laakiin shanta xun waxa la badda hal mar ayaa qurmiyo laakiin mamadaas يعني بين maahan oo ragii hadii inta dhibaato ku geysanayaan qurbaha dhibaato ku geysanayaan walaalahood ku dhibaateynayaan
meesha iska walaashan lahaayeen dhihi lahaayeen walaalaheen waaye ragga ajaanibtada gabdhaheena ma lagu soo xadgudbi kara anagaa garab waa ayagaa dhibaateynaya ayagoo dhibaateeyey ee haddana cadaalad heleynin tii nool cadaalad ma helayso tii dhimatay iska badaa tii yacni dhaawac loo geystay taas warkeeda maba jiro waxaa la faataxa qaadanaysaa tii la kufsaday xataa ma yeelayso taasina waxaa u sababa dadkeena Soomaaliyeed baa sabab u ah oo mar walba xaqa ka leexdo maaha inaad xaqa ka leexato waa inaad ku tiirsanaataa halagugu nacaadii la doono laakiin mar walba waa inaadan xaqa ka leexanin sidoo kaleeto horta sawirkiisa waa kana magaciisana waxaa la Cabdalle Xuseen Axmed dadka badanaa waxay dhahayeen ninka gabar inuu dhibaateeyo oo gabadhan dhiigeeda dhulka ku daadiyay gabdha ma la dhalanin miya wallahi sidoo noo sheegay anaga ani ma dhahay waa la dhashteen ma dhahay laakiin soo aas sheegay wuxuu dhahay 5 gabdhood ay la dhalatay adawaalaya bantiin wiilna ma ogolo in walaashiis la dhibaateeyo wallahi xataa ma ogolo wiil Soomaaliyeed waxaan ogahay in 95% aysan ogoleen in gabar walaashooda dhibaato iska daaya xataa hadal xun lagu dhaho ay ka xanaaqaan markuu wiil gabar hadal xun ku dhaho ee xataa qaarkood ayagoo la dhalan ee dharbaxsheen waan ogahay laakiin inta xunaa ka hadlaa dadka badanaa waxay dhahaan walaalihiisa laga aaraa horta waxaa lahay kornaageed kabe isma dheera wallahi aniga ma rabi in walaalihiis la dhibaateeyo waa gabdho mustaqbal leeyihiin sida aniga dhibku diidaya ayaga dhibku ugu diidaya ma rabo qalad oo qof kala galay in ayaga ciqaabtiisa ay maraan ilaahay ha ka badbaadiyo meel walba dunida ka joogaan waxaan leeyahay qaladku asigalay ilaahay yani idinka manigala abaalgudaayo laakiin ilaahay bamu u kasabo sababtoo ah waa gabar waa dareemi karaa xanuunka ay leedahay dhibaatada marka qof dhibaato loo geysanayo dhibkay leedahay anaa soo maray xataa anoo soo marin xataa waan ogahay ma rabo gabar in la dhibaateeyo ma rabo gabar in lagu xadgudbo dadka badanaa waxay dhahayeen dhaawacaagii iyo siduu ku gaaray iyo waxa mar walba soo xasuustay waxaas noo sheeg badanaa ani waxaa ka shalaaya mar walbo mana ka shalaayiye waa wax ilaahay qoray mar walbo aan yani cil iga qabtaa ramadaankii dhaafay kaliya sababtoo ah ramadaan 7 maraayay markii ay 7 maalmood kadib baa waxaa isku dayay inaan soomo maalintii koowaad aan soomay maalintii labaad ayadoo waliba dhakhtarada ii diiday oo dhaaday ma soomi kartid adaaba dhiiga u baahan tahay laakiin dhiig in haddii aad u baahato dib ugu baahato waa lagu shubaa laakiin hadda adaaba yaabanaha soomin nafteeda way siin weysay bil ramadaan in aan cuno wallahi marka horena dadka waxay u weydiinayeen dhakhtartu way ogyihiin qof dhaawac inuusan soomaynin laakiin waxay ogyihiin soonka meesha oo aniga taagan yahay 7 maalmood markaa daawooyinkii waxa isticmaalay maalintii kale waa soomay alxamdulillah sinabado igu dhamaada maalintii labaad waa soomay sariirta dhan arki waayay qofka horteeda taagan xataa waa arki waayay tabardaro darteeda laakiin alxamdulillah inkastoo ramadaankii dhaafay ma ihi qof ramadaan ku dhibtoodo oo ramadaanka insha Allah waa wax aan gudi doono laakiin waxaa ciid iga ahaaya bisha ramadaan oo aan sugayay hal sano oo aan ku faraxsanaa oo aan isdhaay ilaahay nabad kuugu dhamay ka faa'iideyso inkastoo aan ugu faa'iideystay quraan akhris iyo inaan salaada dukado salaada aan badiyo inkastoo salaada xataa yani dib igu ahayd laakiin waa lama huraan waa lagama maarmaan haddii aad xataa sakaraadta sariirta jiifto uga leedahay haddii aad fadhi ku dukaa lagu dhahay haddii aad istaag ku duka weyso haddii aad ku duka weysana jiif ku duko marka salaada jiif la gaarsiiyey macnaha gacan dhaawacay ma looga tegi karo waana sax mar walba oo aan soo xasuusto ama waxa soo xasuustana ama dhibkii soo gaaray aan soo xasuustana si ilaahay qalbigeyga ugu masaxo laba ragco sunnah iska dukanaya si ilaahay iga tirtiro habeenkii oo kale markay ku soo qarbo ama mididii wixii dhiigii ku soo qarbo horta mar walba anaga waxa ku seexanaa badanaa reer Malaysia dhaqankaas waa ku arkay ani ebel hore u haystay laakiin waa ku arkay quraan baa lagu seexdaa oo quraan ashidana ku seexanaa markay wixii ugu soo laalaabteen habeenkii aan ka hurdi karin madax xanuun kidib waxaa sameeyay ruqiya al-sharciya habeenkii shidan jiray alxamdulillah ilaa hadda waa shitaa laakiin markaas sayd baa u shidan jiray aad baan u dheereen jiray alxamdulillah si waxyaabaha aniga qalbigeyga soo dhaxgalayo
oo quraanka iiga dhaxgalo oo quraanka marka aad hurdayso kaleeto quraanka hadii agtaada ka shidan yahay qalbiga waa kala akhrinaysaa marka hore intana sida maanta wixii dhacay oo kaleeto iyo sheekooyinka maanta si ay u soo naqana u shidan jiray quraanka oo nadiif qalbigayga nadiif ah aan seexdo aan soo kaco alxamdulillah wax walba waa la soo dhaafay laakiin arinta kaliya ee jirto waxay tahay unsafety waan idin sheegay horna idin kugu sheegay aadna waa idin kugu celinayaa haddii aad dhihi doontiin hadhow haddii aan dartiis god u galo aad dhihi doontiin hadhow ayadaa qarsatay hadda waa idin tuso waa kaasa magaciisana waa haysatiin insha Allah tacaala wax dhibaatana ilaahay nama tuso idinkan dhibaatada ilaahay idinka badbaadiyo anagana ilaahay naga badbaadiyo dhamaanteen waxa waaye adoomo ilaahay baan nahay dhibkana laguma waaree waa laga dhamaadaa aqoontu wax bay hagtaa akhlaaqda waa wanaag hadaa tahay waaye arag caqliga waa ku ilays waxaan leeyahay guys dhamaantiin meel walba dunida ka joogtaan intaan video waxay ku kulmi doonaa waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo insha Allah tacaala hadee videoyaasheena caadiga waa iska bilaaban doonaa wixii soo kordhana waa idinla soo socotiin doonaa dhamaantiin waa mahadsantiin qalbiga ayaga taaliin wallahi maanta Instagram-kayga Snap-kayga wallahi maanta dadka dhan waa ka xunnahay cod qoraaladii heer waxay gaari aan akhrin waayo habeenkii cunto aan cuni waayo wallahi oo inuu akhrinayo dadku u jawaabayo waqtigii uu dhamaaday inta u soo jawaab waayana yani meegahan isla weyni meegahan yani ha u jawaabin qof dhan oo aniga igu soo bixiyo waqti si oo ila hadlo ama dareenkiisa ila wadaago oo ila qaybsado sidee uu jawaab waaya marka insha Allah tacaala dhamaantiin waxaan rajeynayaa inaan dhamaantiin aan yani idin soo jawaabi doono dhamaantiin aan wada hadli doono insha Allah tacaala dad badan way jiraan oo aan call waqti ku wada qaadanay insha Allah hadee Instagram naqan lahayd iyo hadee Snap naqan lahayd dhamaantiin waxaan kaga tagayaa cimri dheer iyo cibaado suuban insha Allah tacaala bye bye